markii dambe dawladdaadii waxa lagu tilmaamay inay ahayd tii bilowday waxa loo yaqaano muddo kororsiga oo dhowr goor ayaa golaha guurtidu ku kordhiyeen korintii doorashadii kama dambaysta ahayd aan la qabanin tallaabooyinkaasi oo mucaaradkuna aad u diidanayeen oo aad idinku cambaareynayeen imika markaad dib u eegto sax ma kula ahayn mudane warta anigu muddo ma kordhisan this is the fact marka horeysa qarax baa dhacay iyadoo diiwaangelinta socoto nimankii diiwaangelinta sameynayay way qaxeen diiwaangelintiina meeshay ku joogsatay kordhintii oo horeysay halkaasay ka timid tii labaad 2009 March komishinkii markaa joogay doorashadii in la qabto iyay ku dhawaaqeen anna waan ogolaaday mucaaradkaa diiday oo yidhi gali mayno oo maaragtaanay doorashada kuma galayno sidan taa labaadna iyo ka sabab ah anigu ninkii ku maamaha muddo la kordhiyo markii doorashadii u horeysay 3 sano qaada leeyahay muddo la kordhiyo kuma iibsanaysa Soomaaliland doorasho ku iibsanaysa labada jeerba iyo ka sabab ah waxyaabaha kale inuu sameeyay ku sheegaya aad way iska badnayd oo ragga mucaaradku waxa aftahamada inay waxay rabaan iska sheegaan xukuumaddu wax kasta ma sheegto laakiin kan mucaaradka meesha joogay wuxuu rabo inuu sheego waa freelance buu yahay oo wuxuu rabo iska sheegaya taa iyo ka kordhiyay taana qaraxii baa kordhiyay wax alla waxaanigu aan kordhiyay ma jirin weliba diiwaangelintu failure bay ahayd oo qofkiiba 20 kaadh oo beena baa loo sameeyay anigu markaa challenge-kan sameeyay waxay ahayd ilaa bariga sanaag ilaa bariga laascanood yaan diiwaangelin ka sameeyay markay diidaan hay'adaha caalamigu waxay diideen diiwaangelinta bariga sool iyo sanaagan ka samaynayo waxay ka dhigeen conflict area inay kharash ku bixiyaan bay diideen anigu kharash gawaaridii dawladda iyo shidaalkayga baan ku bixiyay waxaa taa la mid ahayd inay mucaaradkuna diidanayeen in diiwaangelinta la sameeyo aan ku dhameeyo waxaa isku mid noqday beesha caalamka oo inaga diidanayd dhulkaasi dhul aanayna ku lahayn inay ahayd iyo mucaaradkeena ku raacsanaa oo iyaguna laga diiwaangelin maayo oo caruurtii yidhi waa la idin leynayaa tagina meel baraagaha qol leeyahay jaamacad Suulan oo wareysan kartaa markaad u baahatee ayuu dhalinyaradii iskuuladeen ku daray geeyay markaasay qoliyaha halka deganaa oo sangaliyay ay soo dhaweeyeen oo diiwaangelintiina laga soo sameeyay challenges badan oo isku haynay markaa beesha caalamka oo mucaaradkaygu garab siinayeen ayaa meesha jiray waxyaabaha kamid ahaa komishankii meesha joogo sharci ahaa ayay kula soo heshiiyeen beesha caalamka in komishankani uunan saxahayn oo meesha oo maxay lagu haystay komishanka beesha caalamka waxay ku haysteen diiwaangelinta ka sameeyeen bariga qoladana the same thing bay ku haysteen diiwaangelinta bariga laga soo sameeyay iskaashadeen ana ogolaaday haddana komishankii yidhi waa nimankani geeday ku xoqdaan hawaayaan ma idin la tahay inaad sacrifice samaysaan oo iska tanaasushaan watay haaba yiraahdeen way resign gareeyeen komishan kale cusub la sameeyay oo meesha yimid in their favor banu sameeyay in their favor si aan uga saaro deadlock ay ku jiraan iyo waxa consequence ay ka meeshan inuu conflict uu ka dhaco ayaan anigu ee muuqatay marka sawirka ee muuqday kaasoo ahaa sida darteed baan ogolaaday in maaragtaanay commission sharciya oo waqtigoodu dhamoon
inaan ku qancino inay isaga tagaan waxa taa kale oo helinaysay doorashada yaa soo horeeyay waxba la kordhiyay leeyihiin doorashada qabtay madaxtooyada doorashada deegaanka ka soo horeysay oo time table-keegu oo qornaa doorashada deegaanka galeehay way yimaadeen oo ana ogolaaday in doorashada deegaanka in dib loo riixo oo madaxtooyada la soo hormariyo sababtuna waxay ahayd markaa si iyaga bal nimankan grievanceskooga iyo murankooga aan u soo yareeyo oonan anigu nin jecel kursiga sii jecelba oo isku dhajinayaan noqon ayaabaan u sameeyeyba inaan doorashadii deegaanka dib u riixo oo tii madaxtooyada soo horeysay anoo xaq u lahaa inta deegaanka hortan qabto waa tay tii madaxtooyada dhacday doorashadii waa laga helay rag kaaliyayaashaada ka mid ahaa way diideen natiijadii soo baxday adiguna waad ogolaatay sababtu maxay ahayd sababtu waxay ahayd anigu waxaan arkayay mid baan taa kugu daray rag kaloo dhallinyara yimid iyaga ka sogo kuweega meesha xaalad waxaa socotay confusion ama cadka cunay ama ciideeyey baa meesha ka socotay cadiyahu ama ku cunay ama ku ciideeyey ayaa meesha ka socotay marka anigu waxaan doortay cadka inay cunaan oona la ciideyn taa macnaheedu waxa weeye inaad adigoo ka doodi karayay inaad ka dhaqaaqday inaan ka dhaqaaqo khudbadaydiina waan ku sheegay ana yidhi raggaygu xaq bay u lahayn inay ka doodaan anaase diiday anigoo Soomaaliland u danaynaya khudbadii aan ku wareejinaya Axmed Sirayana waan ku sheegay muddo dhowr iyo 10 sanadood ayaad imika ka sii maqan tahay xilka inta badan dabadaad ku noolayd gaar ahaan wadanka Faransiiska ka waran noloshaada imika inta dambe waxaan door biday bal caruurtayda inaan ilaaliyo koritaankooga oo muddada 13 sanadood aanan war badan u hayn inaan iyaga waqti badan ku qaato arintaydu waa taa gabagabadii waxaynu maraynaa waraysigan oo taariikh u badnaa su'aasha kale jeclay inaan ku weydiiyo waxa weeye mudane Riyaale muddadii aad xilka haysay ee 8 sanadood ahayd go'aankii kuugu adkaa ee aad qaadatay ku soo maray muxuu ahaa wallaahi go'aanadu ma yarin go'aano badan oo aad ma qaatay kii kuugu adkaa muxuu ahaa yaa kii kuugu adkaa ee ku soo maray muxuu ahaa go'aanada iyagu adkaa way badnaayeen anigu mid ku sheegi maayo go'aano badan oo adag bay soo maray haddii laba aad iiga sheegto laascarood markaan tagay oo kale ee weerarka lagu qaaday adigii waqtigan marka laba baabuur oo waxa ka yimid Puntland ay soo direen mid waa meeshii baa lagu gubay midna uu baxsaday go'aanka marka waxaan qaatay inaan meesha iskaga soo baxno ciidankii marka gurmadka ku imanayeen aan oog markaan mid baan idhi alla soo xareeyo halkan markii la igala soo hadlay dadku waxay rabeen inay retaliation la sameeyo waxaan idhi war laascanood cidna inama dagaalamin cid kale ay nagu soo duushay cidaana maalinteeda yaan la dagaalamaynaa doorasho ay noo taala doorashada ayaan galaynaa dagaalka laascanood maalintaan hawsheeda galaynana waa maalin kale iyo waqtigeega iyo laascanoodoo aan ka diyaarino ciddii howlgalkaa ka qayb geli lahayd go'aankaasi go'aan adag buu ahaa oo dad badan oo igu riixaya markaa inaan dagaal ka galno ilaa wasiiradeeda kaasi mid aan iska soo taago ahaa go'aanada kale aan qaatay waxaa ka mid ahaa dee taa commission sharci ahoon qoladan aan ku raali gelinayo oon meesha ka taga idhaahdo go'aanadaasi dee go'aano wada adag bay ahaayeen go'aamo haddaan si kale ku weydiiyo aad isku ceelkaambidaa ma jiraan isku ceelka horta mid baan leeyahay anigu go'aankan qaato isku ceelkaambiyo waa mana fiicno haddaad go'aan qaadato inaad isku ceelkaambido maahin way go'aanka marka horeba waa inaad ka fiirsataa adoo aragtaa inuu go'aankaasi wax haba adkaade haddana wax laga maarmaan inaad qaadataa hay qaar markaad imika dib u eegto aad tiraahdo malaa sidaasaa kaga habboonayd ma jiraan wallaahi ma xasuusto anigu kuwa xasuusto always waxaan isku dayayay inaan anoo ka fikiray wax emotional anigu go'aanadaydu kuma sanaysnayn had iyo jeer wax iska emotional aanu qaato
ما هي waxaan ka fikro ma qaadan jiray su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya mudane Riyaale waxa weeye imika Somaliland muddo 30 sanadood ka badan ayaa laga joogaa markii ay ku dhawaaqeen inay gooniisu taageen 8 sanadood oo kamid ah adiga xukumayay 5 ka horeysayna madaxweyne ku xigeen baad ahayd mustaqbalka Somaliland sidaad u aragtaa والله أنا مستقبل سوماليلاند waxaan u arkaa continuity inay wadaan maaragtaan ujeedadooda inay xaqiijiyaan laakiin mid ma kala dardaarmaya waxaan qaybjaalada ee la kala dadka la dhex wado waa in laga daayaa qabyaalada hadii laga dayn waayo Somaliland xaalkeegu ma fiicnaanayo anu maamaayo badan baan kala hayo waxaan Somaliland cid u talisay baantay cid u abtirso ma baa waxaan Somaliland waxaan xabada basasha xabada ay naga furfurina hadii kala dabaysha kala qaadaysa marka anu Somaliland waxa kula talinayaa qabyaalada in laga daayo imika waxa taagan waqtiga aan joognay reere isku jawaabay ma jirin xisbiye isku jawaabay jiray waxay rabaan hoosta ku haystaan laakiin reere isku jawaabay وريهبل هدان نهي لا لما سو فريسني بناندا imika reer hebel hadaan nahay baa la soo fadhiyaa waxaasina wax reer hebelnimadu dawladnimadu wax iskale kara maahay xisbiyada la bargiiba waxaan u sameynay inaan reernimada kaga baxno oo xisbiyaan noqono oo dadku haybtoodu xisbiya ay noqoto oo inay haybtoodu qolooyin noqon marka anigu reer Soomaaliland waxaan leeyahay haddii aad rabtaan inaad xaqiijisaan himiladiina qabyaaladani aad banaanka la fadhidaan waa reer hebel iyo waa markaygii in la iska daayo oo nidaam xisbi wax lagu raadiyo oo yooyootankani la isla hor fadhiyo ee qabyaalada ah in Somaliland laga daayo oo dawladnimo iyo xisbinimo wax lagu raadiyo ninka kursiga doonaya mudane Daahir Riyaale Kaahin aad iyo aad baad u mahadsantahay waa hagaagintaasna waxa ku dhan waraysigan oo magaalada Hargeysa aan kula yeeshay madaxweynihii hore ee Somaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin mudane madaxweyne mar kale aad iyo aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay